qofku markuu diinta Allah u adeegayo waa imtixaanaya ala hasbi amalihi in magacyo loo bixiyo ama dhibaato loo geysto oo la yiraahdo kaasoo argagixiso iyo waxa sameeya magac ma weynayo maxaa yeelay wax u shaqeynaya cadow leeyahay shaydaan bacdo ku ah oo wax uu qabanaya isagu cadowsanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu warramayay luqmaan oo Allah wiilkiisa maxuu ku yiri ya bunayya aqimis salaa wa amur bil ma'ruf وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وحكير ويلكيجيو صلاة إلهي ويلكيجيو ومضى غيرك ويا رحمن تودك ويحكو سوغا ركو صبر وأربها قوان ولا قول مقرانيو ويلكيس وحكو دامريي وحكو دامريي ويلكي وحكو سوغا ركو صبر وحكو سوغا وحا ويكو ما أنا كو صبر maxaa yeelay waxa weeyaan marka qofku xumaan oo wax umada wadigayo oo wanaaga u sheegayo ma weynayo wax imtixaana ma weynayo wax magacyo u bixiya ma weynayo wax naba oo dhibaato ku tilmaama marka waxa weeyaan diinta loo adeegayo ee loo qidmaynayo shaydaan baa baal soconaya shaydaan baa waxa uu doonaya qofku inuu waxa weeyaan wanaaga ka haro ilaa marka ugu dambaysa qaraabada eelku ay yiraahdaan wareede waxaan maxaa kugu saliday maalin walba waxa weey waa lagu xiraya maalin walba waa lagu imtixaanaya hadaba maqashay wiilkii oran jiray waxa weeyaan Cabdimaal Codoon in waxa weeyaan la xiray waxa ka warramay iskool waxa weeyaan xuma lagu dhex sameeyo meel iyada waxa weeyaan magaca loo qurxiyo laakiin xuma dhex sameeyo ayuu ka warramay xogtii uu keenay waxa weeyaan wuxuu yiri meesha xuma baa lagu hayaa markii xumaanta uu ka warramana hadda waxa ku mutaysa wada aragteen xabsi weeyaan waxa loo xirayaa waxa loo xiraya ma uga waramaya xumaanteeda ma uu sheegaya umada ma ugu soo bandhigaya wax kale ma ahan Allah subhanahu wa ta'ala ka waramaya ashaabul ukhdud ma yiri wama naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-aziz al-hamid waxa loo ciqaabayay oo qoomkaasu midkii waxa weeyaan gaalka u ciqaabayay wax kale ma ahayn wa ila ilahi rumayyi subhanahu wa ta'ala dambi Allah istakari'a ee loo ciqaabaya waxa ahaaba ila ilahi rumayyi marka qayrka markaad faafinayso hada calaw waad leedahay shaydaan ugu horeeya shaydaan waxa ka soo galaya dariiq walba is oran kara qofka waa lagu dhibaatay karaa waa lagu dhibaatay karaa waxana la waxa weeyaan la marayaaba zaman qofka diinta u adeegaya ee daaciga ah ee waxa weeyaan ka go'an tahay rabbi jalla wa ala kitaabkiisa u khidmeeyo in magacyo loo bixiyo ee la ilaahay argaxiso oo waxa weeyaan magacyo loo bixiyo وزمن قلت المام يا رسولك عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمرة وهي مانا يا زمن أحد ككون دين تيسا أو نغاية قفني بالها يوكره قرابة وحي كليهين والوحى ويمان والما واحد كذا الشهر والأمل له حلاء والأمل له نباتية ورسل أمل له يلا واحد كور رميس وواحد له دري وواحد ويان جنة إلهي له قريه مركا حق أمد إلا ويره oo waxa weeyaan kitaabka iyo sunnada laga dhex bixin oo waxa lagu liibaanayo ama in qolo ay magac ku bixiyaan ama lagu xiro ama lagu handalo waxa weey diinta waxa uu fadhiyo maydo waliba waxa weey ducaadaba waligood waa xiri jiray ducaada ee diinta u shaqeeya xabsi way geli jireen maxaa yeelay waxa weeyaan waxay ka waramayaan ay ka hadlayaan shaydaanku ma ogola